in badan naftaydii hani haysay hala yaabe. Assalaamu calaykum tout le monde, waa Buti TV oo maanta joogta Siesta. barnaamij cusub baan bilownay oo ah micro trottoir. marka buutkan halkan ka leenahay waxa weeyaan intaan opinionyaasha reer Djibouti aan kala soo baxno annagoo maalinba teem cusub la imanano oo su'aalo ka weydiin doono. assalaamu calaykum, maanta waxaan la joognaa إفراح آدم جدي عمر مصطفى ظاهر علاد بعل صالح عثمان عقي دقبل جوجتا محمد جيبوتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقعيق واحد ورتا يعني جامع محمد بلورتا. برشة وناكسن ayaa loo su'aasha maanta la duurayay waxa weeyaan gabadhii aad jeclaan lahayd saa ku jeclaan lahayd gabadha ama xiriir la yeelanaysa ama inta guursanaysid saa jeclaan lahayd intee noqoto tuwana ka helo kusuuni anna kusuunidii way iga helaysaa wasiinaya sidaasay tahay balse waxaan ka xumaanayaa naagtii iyadoo imika iga leh anigu waan ku jecelahay caawiilo joogto misana anoo habeen shaqo ku maqan aan ku arkayo nin kale aniga shaqo hol ku jira marka inta nin kale ka raacda igala hadlaysa may sidaa ma se basa imika waxa ku leedahay waan ku jecelahay bay ku leedahay nin kalena waan jecelahay bay ka leedahay ya marka may sababta ay naagu taa ku waxaynayaan anu xabada waa ka xumaaday balse naag warna waa hooyo marna waa walaal marna way ku dhashay marna waa macay marna waa inta xaqna way kugu leeyihiin ya balse hadii aad adiga xushmeysay oo qadarisay inay dhabarka ka toogto ma warun fahmay waa gabadh ku xushmeysa oo ku qadariso de zigzag iyo xtiraan wala zigzag waxa aan sameeyay qolqolo cusaan u socotaa ya marka adigoo si toos ula socda naagu hol mid bay ka cabsoodaan horta naagta la qabo furun bay ka baqataa haye ka baqataa naagta kalena maaragtay adigoo ama si kasta horta marka lagu leeyahay naagtii wala shaqaysanaysa wala socotaa waa inaad ka soo qaatid sidii adugu amaata qaba ay naagtaadii tahay inkastoo isku dhacay si toosan ula dhaqamtay sida iyadna saa kula dhaqamto aad baa u maasantahay walaalkayo aad baa u maasantahay sa ani runtii waxay la tahay horta hablo maanta aad bay u badan yihiin wana qurux badan yihiin marka quruxdu aad bay ugu soo jiidanaysaa markaad saa wareegtay laakiin dhab ahaantii waxaan doon lahaa gabadh dabeecad wanaagsan leh isfahanno markaan qoslaylo qosasho dhibaatada hoos iga dhigta de markaan culays dareemay hoos iga dhigta runtii gabadh casoo dheer de gabadh casoo dheer oo anay muuqahaan iga weyn kaa weyn may balbalaarkaad u raacsantay balbalaarka markaa dee si fiicanna dee iyo hawlgelis balbalaarka intuu naqasku kugu dhagiyo may diyaar baan waan karayaa aad baa su'aal baan ku hayahay waxaan ku weydiiyey ton type d'homme muxuu noqon lahaa nacam ninkaad jeclaan lahayd dee siduu noqdayo waxaa inta nooga yaraahdo اوكي waxa weyn horta kulli qof kastaba dooq buu leeyahay dooqyada binaadamka isku mid maaha anigana qaab iga mid ayaa jira oo ninka ku doonar magaalo waa wala rag laakiin hadana miisa khaas waxa kamid ah qofka dabeecadiisa akhlaaqdiisa systemka noloshiisa yaani muxuu hadaf u rajeenayaa muxuu doonayaa inuu gaaro higsi nolosha muxuu ka leeyahay lacag iyo qurux waa la gaaro labada midba nin kuma doorteen laakiin adoo aan ka dhex galay waa qof buutle ayaa jeclaan lahayd nacam de موقف له مسكح له مال جوجتان له رأي عدانا له ده توصل لأرك كرايو سويني قدرادو تولو يشده بون تايم قبلين بدن كينو حدان هذا كيسيو برني دي زين اسلكات ده برني ما هي ده قف ده يرعي رجيم حس أحلام ذا أوكي أمي aad baa maasanta adduunka wax dhameystiran ma jiro adduunyada waa tira sagaal cunta boqolkiiba toban wada leeyahay laakiin qofku waxa ugu muhiimsan ka waanada intuu sifooyinka nabiga ku doortay diinteeda iyo maalkeega iyo quruxdeeda iyo fadfir bidaati diin buuri diinta adigu waxa ugu muhiimsan waa diinta waxaan saarayno inta kalena diinba haddaan ku helaa markaa leedahay inta kale waan ka bixi karayaa quruxdii oo dhan waa diinta koobsanaysa de saasaan odhan lahayn aad baa umahadsantihiin cumar waxaan ku weydiiyey gabadhaad jeclaan lahayd intaa guursatid bal dee sidee noqon lahayd sidaa aad u jeceshahay gabadhaad jeclaan lahayd intaa guursatid bal kriteeradeeda iyo yara sheeg sidaa ku jeclaan lahayd waa gabadhaan jeclaaday gabadh baa beri jeclaatay sidee heed way qurbayn tahay marka dabeecadda leedoo de maxay yar jajaraysaa yar jajaraysaa maxay been kuu sheegaysaa macam been bay kuu sheegtay haye iyo marka haddana waxay sheegaysaa waan kuga qaadi jacayl ku qoranaysaa jacayl baan kula qaaday bay ku tiri haye marka saddex cisho la hadle markaas quruxdeeda ay cajibisay way ku cajabis laakiin been bay ku sheegtay beentii sheegtay marka beenta bal ma noo sheegi kartaa waxaad ma nin kale ka raacday beentii waxay qaar wax jira qaar dabeecad fiican jira qaar beenta ba xunaa jira
qaar been xun iyo qaar fiicna jira ee ku soo raacayo waxaan ku weydiiyey cumarow gabadhaa jeclaatay been bay sheegtay iga tiri maxaa ku nacday beenta wax ku nacay ma sheega kuwa jacaylka kuwa qaadimayso jacaylka kuwa qaadimayso jacayl kuu qaadi mayso may kuwa qaadimayso ku jaraysa ku jaraysa macam intii jacaylkan kuwa qaadi ku tira maxay salaama hadii ku hoos qaadaysaa waan gartay marka jacayl lama aaminaaba leedahay marka jacayl wax la aamino magaalada beenta runta ma jirto maxay magaalada Djibouti ugu badiyeen in run sheegto in been sheegto way magaalada ku wasa jiraan magaalada marka badida inta hatta la saloogo in badina in run sheegta jira in been ku sheegta jira marka waxaan ku rajeynaa tu been ku sheegin inta la kulin doonto insha Allah aad baa ma sata Umar aad baa ma wallahi in waxaan jeclaan lahaa gabar asluub iyo xishood leh oo diin leh oo adude ehlo khayr daadigu marka tu faxday waxa adiga kuma baxday khayrka ayaa khayrkan raacay ay saaxiibkan أنا waxaan jeclaan lahaa horta inantan waxaan jeclaan lahaa inay noqoto inan qurux badan marka quruxda ka dhaqaaqaysa koo inan qurux badan inay noqoto labo maxaa la yiraahdaa inan ay noqoto maxaa la yiraahdaa xishood badan oo aan rag badan iyo waxaan lahayn adu marka dhaka jaaluga yar badan jaalu waa nacdaabay ta gabadhaada lagu seede waa wax la nacmaa garaasa marka gabdhaha qurux badanka raggu way soo jiitaan oo ma garatay ragga bilow ma kala bixi dootiinba hadaa nacam qurux ku raacdid baan sheegay haddii qofkii maxaa la yiraahdaa aan jecel yahay haddii ka soo qofka la iga raacdo ayaaninta diidada waa maska gaari ilaano ma jirto kaligeeduna ma qurux badnayn tu kale qurux badan baa raasanta markaas tilmaamtay tu qurux badan oo divala xishood aad baa ma santiin wala inay markaas baqsiga diin yeelato koriigu yar meesha inay diin yeelato akhlaaq yeelato islaamnimadii bilaatinimada wax ka garanayso baqsiga qof akhlaaq leh oo markaas dadkayga diinteeda ba jecel inay noqoto inay noqoto marka akhlaaqnimo iyo diin iyo tu faxday waxa baan camdi wala mamsi hadii ay qof markaas ay boon meerad amba markaas dibadda ay ku badato waa fuween laakiin waxa adigu dariiqa saxsan kuma ridi kari lahayn ilaa mar hadduu jacaylku imaado adigu ma hagi kari leeno dariiqan ba kuma ridi waa qasab mamsi aanu sidaan hay inay noqoto ma doona insha Allah aad baa ma santahay walaal waxaan su'aasha maanta la duuriyay tahay tiibda meefkaaga gabadha jeclaan leed inta gursata ma ta xiriir la yeelat sida ku jeclaan hadaba anu yahay waxaan rabaa gabadha nolosheeda iyo khaasa dokhayga aan rabo ad garan laakiin inta u badan laakiin hablaha Djibouti ma ina rabo ma ina gursada ma rabo ba gabdhaha reer Djibouti barkaad waa ka soo horjeeta bal loo macnayo wallahi ikastoo hadana aan ku macno ma garan wixii iyakoo qurux badan iyakoo dabacad dhaqankii wax kaas iskale iyo hadna inkastoo wixii kugu qaansa galkayga la helitaankiiba dib kugu qaansa ma garatay gabadh dhaqan leh diin leh wax lagu doorsado ma jirtay maxaa adiga ka soo bootay diin wax kasto lahaato wixii joogto dalkayga wixii dhulkoogu joogto ma garan laakiin anagu dokhayga wallahi inaan xaqan ku guursato ma rababa hablaha joogtiin ka tu cadaan ayaad u jeclaan leeyahay ajnabi dadka ba iga khayroon ba waan gartay ajar ku helaa yaa khayroon waa dookhaaga aad baa u maasantahay walaal in badan naftaydii hani haysay halayaabe qalbi harade hurday iska waayay abid baad hadlaysaa markii yamataha kal asaxday dawaal beri markii yaa xubiyey naf jacayl haleele wixii dartaaba halayaabe hadda cashaqa i baray dabintaada ka baxay barbartan raacidan habeensanada yidhi kayaan dhararan kayaan kaaganahay ka baqo